wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer guuraaga Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare kadib markii ay ka soo laabatay socdaalka ay ku soo martay wadamada Jarmalka iyo Sweden ayaa warbaahinta qaranka waxa ay xuquuqna ku siisay qolka nasashada ee Cigaal International Airport ee caasimadda Hargeysa waxaana wasiir Shukri ay ka xuquuqrantay ujeedada socdaalkeeda iyadoo sheegtay in ay kala qayb gashay jaaliyadda reer Soomaaliland wadamada Jarmalka iyo Sweden sanad guuradii 24aad ee qaramada Jamhuuriyadda Soomaaliland safar shaqankum ayaan u baxay halkan ka tagay waxaan qabanay dalka Sweden halkaasaan kala qayb galay 18 May dabaaldegay loo sameeyay waxaan ku soo noqday Germany-na waxaan kala qayb galay dabaaldegay ay u sameeyeen Frankfurt lagu sameeyay ay u sameeyeen dhalinyaro aad iyo aad u farbadan reer Soomaaliland waayeel iyo dumarba isugu jiraan way joogeen waxaan ku yiri waxay ahayd xafladii qaranka ayaan soo maray marka wuxuu ahaa safar aad fiican safar runtii marka deegto wax ku ool ahaa waana waxaan filayaa halkan sidaas leegumba iyo si ka weyn baa loogu dabaaldegay marka waxaan deelay Soomaaliland way socotay cidinayay ku daa geesta kale wasiirka deegaanka Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare waxa ay sheegtay in qaarada Yurub ay ku soo aragtay bulsho dhowranaysa deegaankooda isla markaa loo baahan yahay in ummadda Soomaaliland ay ku baraarugto in ay deegaankayga iyo dhirtaba ay ilaashato wallahi Yurub markaan imka soo arkay sida dadku deegaanka u danaynayo ama uga shaqeynayaan dawladda iyo shacabka sida looga wada shaqeynayo runtii qeyr gaar ay soo gashay qeyradaasina waxaan anigu isleeyahay imka waa idin laba jibaaraysan shaqadii aanu haynay inaanu laba jibaarno wasi weyn laba jibaarno oo dadka si rasmi ah imka inkastoo markii horeba xoog saaray imkana xoog kale hadii la yaanu si saari doono bal sida isbedelka maaragtay cimilada watan horta arkayso roobkii sanadkan baynu arkaynay 3 sanadood ugu dambeeyay buu naga raageen cimilada isbedelaysan dadkii si wanaagsan looga dhaadhiciyo beedii maaragtay ay ahayd in la ilaaliyo dhirtu kow ka ahaydna aad iyo aad ugu liidanana bal hadii la yiraahdo xoogan si saarino si laban laabayn geesta kale agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer guuraaga Maxamed Cilmi Xuseen ayaa waxa uu maadnaqay wasiirka deegaanka isoo ku tilmaamay shakhsi ku sifoobay sidii ay u ilaalin lahayd deegaankooda isla markaana ay bulshada ugu dhiirigelin lahayd sidii loo dhowr lahaa dhirta dalkeena waxaan ku soo dhaweynaa dalkeeda waan ku soo dhaweynaa wasaaraddeeda runtii waa qof aad u qiimo badan in badan ku hawlanaay inay ka hawlgasho deegaanka horumarinta ama badbaadinta deegaanka markay civil society ka shaqeynayso iyo markii ay xukuumadan Axmed Silayo ay la shaqeynaysayba wasiirka deegaanka Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare waxa garoonka Cigaal International Airport ku soo dhaweeyay qaar kamid ah agaasimo waxeeda wasaaraddaasi iyo shaqaalaha wasaaraddaasi ka hawlgala